120 isugu jira caruur iyo kuwa u baahan dhaqan celin ayaa maanta taliska ciidanka asluubta Soomaaliya wuxuu ka ururiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Caruurtan ayaa ahaa kuwa ku dhibaataysna hareeraha wadooyinka Muqdisho. Taliska ciidanka asluubta ayaa u istaagay in caruurtan ay helaan xanaaneyn, dhaqan celin iyo waxbarasho joogto ah si aysan uga faa'iideysanin duruufaha haysta kooxaha argagixisada. Madaxa hoggaanka ciidanka asluubta General Maxamed Axmed Sabto ayaa sheegay in howlgalkan ay fuliyeen uu ahaa dhaqan gelinta amarkii taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya. annagoo fulinayna amarka taliyaha guud ee ciidanka asluubta waxaan soo qabanay 120 ciyaalkii magaalada ku jiray kuwaasoo loogu talagalay in dib loo xanaaneeyo say u helaan xanaano jireed, mid cunno, mid caafimaad, mid dawo iyo waxbarasho. Afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliya gaashaanle sare Cabdiqani Maxamed Qalaf ayaa ka hadlay howlgalkan iyo caruurta waxa loo qaban doono, isagoo sheegay in katalis ahaan ay u diyaariyeen goobihii loogu talagalay in caruurtan lagu xanaaneeyo. operation saaka la qaaday oo taariikhdu ay tahay 12 bishii koowaad waxaa lagu guuleystay operationkaas in lagu soo ururiyo dad gaaraya 120 qof taasoo amniga iyo bilicda horseed u ah nabadgelyada, taasoo horseed u ah ummadda isheeda ay arkayso wax wanaagsan. taliska ciidanka asluubta oo kaashanaya maamulka gobolka iyo booliiska waxay maanta ku guuleysteen inay soo qabtaan dadka inta tirada leeg. dadkaas waa la kala saari doonaa, waxaa loo kala saari doonaa kategoriya loo kala saari doonaa. waa qaar waxa la geynayaa haddii alla in meelaha loogu talagalay meel walba qolo kasta meesha ay leedahay la geynayaa, waa la dhaqan celinayaa, waxbaa la barayaa, waxaa lagu soo celinayaa noloshii hore ee asaaska ah. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka, Muqdisho.